bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda dilalka lagu ugaarsado dadka ajaanibta ee ku ganacsada dalkani Koonfur Afrika ayaa ka dhacay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Bannaanbaxan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Bakistaaniyiinta ee dalkani Koonfur Afrika ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Cape Town, kuwaas oo si bareer ah uga wada cabanaya dilalka iyo cadaalad darrada lagu hayo ajaanibta. sidoo kale waxaa bannaanbaxa dhinac ka ah Soomaali, Bangladesh, Ethiopian iyo qowmiyado kale oo badan, waxayna si isku mid ah uga wada cabanayaan ugaarsiga lagu wada hayo. maalmo ka hor ayay ahayd markii shan Bakistaaniyiin hal mar lagu dilay deegaanka Majlis Belen ee hoostaga gobolka Western Cape, kuwaas oo si aad ah uga xumaaday tacadiyada loo geysto dadka aan u dhalan dalkan South Africa. waxaanu ka soo horjeednaa oo maanta kala qayb qaadanay halkan mudaharaadka ka dhacaya baarlamaanka South Africa oo ku yaala magaalada Cape Town hortiisa. mudaharaad aan kaga soo horjeedno dilalka ka baxsan bini'aadanimada ee lagu sameeyo dadka qaxootiga. arrintan waxa soo abaabulay community-ga Pakistan oo toddobaadkii hadda dhamaaday lagu dil foolxun lagu la kacay magaalada xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay marka laga reebo Belvel. Majlis Belen la yiraahdo lagu dilay 7 qof ama 5 qof oo iyaga lagu dilay, iyaga soo qaban qaabiyay, waxayna codsadeen in laga qayb qaadato. annaga haddaan nahay dadka Soomaalida South Africa ku nool waan kala qayb qaadanaynaa. 208 the last was the 4-5 Pakistani died here in Majlis Belen last night we got another 2 killing in Somali nations in Kayalicha. So this is what we are going through. No one is going through what we are going through. It's very painful. We come here for honest, we build for our life. We are creating. Abdul Fattah Al Samatar Sablale, Somali Journal, South Africa.